salaadiinta waxgaradka cuqaasha iyo aqoon-yahanka beesha degta degmada Sayla iyo xaafadda 11 Meey ee magaalada Hargeysa ayaa subaxnimadii hore saaka u anbabaxay buurta gacan libaax oo muddooyinkii u dambeeyay shiraya ka tashiya uga socdeen mid kamida beelaha waaweyn ee Somaliland. salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka oo bulsha TV kula hadlay duleedka bari ee magaalada Hargeysa ayaa waxay shaaciyeen ay u baxayaan martiqaad rasmi ah oo ay beeshaasi u fidisay ugaaska guud ee beelaha Ayuub iyo aqoon-yahanka beeshaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen shirka ballaaran ee halka imika ku taaganahay bisha Juun 30keedii waanu u baxayno annagoo erga dhaqameedkiya oo ku socona shirka ballaaran ee beesha Garxajis Ismaaciil Sheekh Isxaaq la naga xasuumay sida daraadeed halkaas aan idinku salaamayna waanu soo soconaa insha Allah ergadii beesha Ayuub oo isku jirta salaadiin madax dhaqameed guurti dhalinyaro siyaasiyiin oo doonaya inay ka qayb galaan ama lagu casuumay shirka qoomiyadda beesha Garxajis ee ka socda buurta gacan libaax marka saacada oo iminka 10 balkaan Hargeysa ka baxnay waxaanu tageynaa shirkaas kala qayb gali doono beelaha faraha badan ee Somaliland ee shirka ka qayb galaya waxa tagaya odayaal dhaqameedkii beelaha Ayuub siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo cuqaasha shirkaasoo wax dalka iyo dadkaba u danahi ay ka soo bixi doonaan insha Allah dhammaan waxaanu salaamayna ummadda reer Somaliland maanta ay bishu soo doontahay waxaana lagu casuumay shirkii beelweynta Garxajis ee ka socday buurta gacan libaax ee laga hadlayay danaha ummadda reer Somaliland oo dhan insha Allah waanu ku sii soconaa waanu idin salaamayna dhammaan ummadda reer Somaliland weergadii ugu ballaarneed ee shirkaasi ka qayb gashay tan iyo markii uu ka furmay buurta gacan libaax waxaana ay bulshada Somaliland si weyn ugu dhagtaagaysa waxyaabaha ka soo bixi doona shirkaasi. Maxamed Yuusuf Iimaan, Bulsha TV, Hargeysa.